daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films channel oo idin soo gudbisa dhacdooyinka kuwa ugu xiisaha badan ee ka dhaca shirkadda Hollywood ee dalkaasi Hindiya. Aktarada ka tirsan ee filimada ka dhiga dunidana caanka ka daawadayaal barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa 10 atiriisho oo muuqaaladoodii qaabka darna ama fool xumaa markii dambe u bedelay qurux qaliimo ay ku sameeyeen wajiyadooda qayba kamid ah. sida la wada ogsoon yahay dunida waxa maanta ay maraysaa casriga ugu dambeeyay oo qofka waxa uu ku sameyn karaa wajigiisa qaliin hadii lacag uu haysto. waxa uu qofka bedeli karaa qaabka uu sankiisa u sameeysan yahay ama afkiisa ama dhabanadiisa iyo dhamaanba xubnaha jirkiisa oo idil waa hadii uu haysto kharash u saamixi kara qaliinka lacagta ku baxaysa. daawadayaal barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa 10 atiriisho ee qaliimada ku sameeyay wajiyadooda kadibna Muqaalkoodii uu isbedelay. atiriishada koowaad ee aan soo qaadanayno waa atiriishada caanka ah ee ka tirsan shirkadda Hollywood ka ahna xidigta koowaad ee dhanka abaalmarinta waa Kajal muuqaaladeedii hore ee ay filimada ku dhigtay waxa ay ahaayeen qaabkii ay ku dhalatay balse ugu dambeyn markii uu soo baxay qaliimadan casriga ah waxa ay wajigeeda ku sameysay qaliino kala duwan. waxa ay Kajal markii koowaad bedeshay midabka ay u dhalatay oo waxa ay sameysay midab cadaanka u dhow kadibna waxa ay kala qaliin ku sameysay sankeeda iyo qanjaha iyo ciridka intaba waxa ay ku sameysay qaliinkaasi kadib Kajal muuqaalkeedii waa uu isbedelay oo waxa ay noqotay gabar aad u qurux badan waxaana uga baxay kharashaad aad u badan bedelidii ay wajigeeda bedeshay balse muuqaaladeedii ayaa waxa ay noqdeen kuwa dadka soo jiitay filmadeeda daawada. jilaaga labaad ee iyadana muuqaaladeedii bedeshay waxa ay tahay atiriishada caanka ee Krishna Kapoor. inkastoo Krishna Kapoor aysan qaliimo badan wajigeeda aysan ku sameyn waxa ay bedelaad ku sameysay dhanka midabka oo ay isticmaashay daawooyin ama maqaarka laftiisa ayaa lagu sameeyay operationo bedelaya. waxa ay kalo Krishna Kapoor ay bedeshay bishimaheeda iyada oo bishimaheedu ay aad u yaryaraayeen markii dambana ka dhigtay bishima xoogaa muuqaalkoodu uu wanaagsan yahay oo ay soo jiidasho leh. daawadayaal Krishna Kapoor kaliya maahan atiriishooyinka qaliinka ku sameeyay wajiyadooda ee atiriishada saddexaadna waxa ay tahay atiriishada caanka ah ee kamid ah xidigaha Hollywood kuwooda ugu firfircoon ee Deepika Padukone soo galideedii jiliinka muuqaaladeedii hore waxa ay ahaayeen kuwa sida ay ku dhalatay balse ugu dambeyn waxa ay sameysay qaliino kala duwan. ugu horeynba waxa ay qaliin ku sameysay dhanka sanka iyada oo sankeeda bedeshay labada dhinacna ka soo yareysay dhabanada laftooda qaliin ayay ku sameysay. qoorta waxa ay ku lahayd cabaayado laaba oo ay ku dhalatay balse markii dambe feera ayaa laga mariyay. waxa kale ay Deepika Padukone ku soo dartay wajigeeda tushta ay ku leedahay bartadaanka labada dhan waa operation lagu sameeyay kadib ayay Deepika Padukone muuqaalkaasi la soo baxday. atiriishada afraad ee aan soo qaadanayno waa Sarah Devi oo kamid ahayd xidigihii sagaashamaadkii waxa ay qaliin ku sameysay laba qaybood oo jirkeeda kamid ah waa sanka iyo sanqaroorka dheer oo ay saaratay iyo bishimaha. waxa kale ay bedeshay midabkeedii iyada oo midabkeedii asalka ahaa uu u dhawaa maariinka ama hindida madmadow balse ugu dambeyn waxa ay noqotay jilaa aad u cad oo waxaad moodaa in midabka cadaanka ay u dhalatay. atiriishada kale ee shanaad ee aan soo qaadanayno waa atiriishada caanka ee Priyanka Chopra waxa ay ku guuleysatay quruxda Mrs India iyo Mrs World balse ugu dambeyn markii ay noqotay qof xidiga oo caan ah oo ay fanka ama jiliinka Hollywood ku soo biirtay muuqaaladeedii waa ay bedeshay dhanka waxa ay ka bilowday midabkeedii oo ay bedeshay waxa ay ku xijisay bishimaha iyada oo bishimaheedii ay aad u yaryaraayeen balse markii dambe ka dhigtay bishima aad u waaweyn oo soo jiidasho leh. dhanka sanka waxa ay ku sameysay operation iyada oo sankeeda laba jeer operation saartay. labada jeer oo ay operationka saartay waxa ay ahayd marna sanqaroorka ayay laga qalay marka dambana labada duleel ayaa aad loo yareeyay. waxa ayna arintaasi ku bixisay lacag aad u tiro badan. atiriishada lixaad ee aan soo qaadanayno waa atiriishada caanka ee dhanka modelka xayeysiimaha lacagaha ugu badan ay siiyaan
waa Bipasha Bazu. Bipasha Bazu waxa ay operation ku samaysay dhanka afka, waayo filmadeeda hore markii aad daawatid Bipasha Bazu afkeeda waa uu weynaa balse ugu dambeyn waa la soo yareeyay operation lagu sameeyay. waxa kale ay operation ku samaysay dhanka dhabanada na waa ay yareysay oo waxa ay ahayd dadka dhabanada u waaweyn. sanka laftiisa operation ayay ku samaysay oo waxa ay fiina ka dhigtay sanqaroorkeeda. waxa ku xigta atriishada kale ee caanka ah ee Shilbasheti waxa ay operation ku samaysay dhanka sanka. sawiradeeda hore markaad eegtid waxa ku muuqanaya in ay Shilbasheti sankeedu uu aad u weynaa balse ugu dambeyn waxa ay samaysatay san aad u yar oo muuqaalkiisa uu ku cajabinayo, waana hadallada ay Shilbasheti ku tiraahdo quruxdu waa la iibsadaa oo suuqa ayay taala. waxa ay kale Shilbasheti operation ku samaysay dhanka bishimaha, midabka laftiisa aad ayay u madoobay balse ugu dambeyn waxa ay noqotay atriisho midabkeedu uu cad yahay oo muuqaaladeedii hore iyo kuwa dambe markaad isu eegtay Shilbasheti farqi aad u weyn ayaa u dhaxeeya. waxaana la yiraahdaa waa qofta kaliya ee badashay wadigeeda oo noqotay xidig aad u qurux badan. atriishada booska sideedaad ku jirta waa Vidya Palan oo kamid ah atriishooyinka ugu caansanaa shirkadda Bollywoodka, haysatana 3 jeer bilada atriishada ugu wanaagsan. waxa ay operation ku samaysay dhanka afka ilkaha lafteeda. Vidya Palan waxa ay ku lahayd lakab amaba ilka isa saaran, balse arintaasi waa laga hagaajiyay oo waxa laga dhigay ilka aad u qurux badan oo markii hore xitaa waxa dib ku ahayd sida la sheegay Vidya Palan in ay dhoola cadeyso ama ay qosasho. haatan markii aad daawatid muuqaaladeeda ama sawirada Vidya Palan waxa aad moodaysaa in ay quruxda u dhalatay balse waa mid ay soo iibsatay. sanka laftiisa Vidya Palan waxa ay ku samaysay operation oo waa la hagaajiyay sankeeda. atriishada sagaalaad waa Aishwarya Rai oo kamid ah atriishooyinka Bollywoodka qaadayna Mrs India sanadkii 1994 ayaa markii ay fanka ku soo biirtay kadib loo sheegay in muuqaaladeeda ay wax ka bedesho. waxa ayna muuqaalkii koowaad ee ay bedesho ay ku bilowday dhanka bishimaha, iyada oo bishimaha iyo faruuryaha si wanaagsan loogu qoray amaba qaliin loogu sameeyay. waxa lagu xijiyay sanka laftiisa operation kale ayay ka gashay oo sankeedu waa uu yara weynaa, dhabanada lafteeda waa loo yareeyay. atriishada ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo qaadanayno waa atriishada caanka ee Rani Mukherjee. iyadu waxa ay qaliinka ku samaysay 2 qaybood oo jirkeeda kamid ah, waa sanka iyo faruuryaha. inteeda kale waa ay quruxsaneed maadaama ay ahayd atriisho indhaheedu ay yihiin indhaha ugu quruxda badan ee dunida aadka loo xiiseeyo. waxa kale oo ay iyaduna mar dhow ku soo dartay dhanka midabka oo ay midabkeedii bedeshay. daawadayaal barnaamijka waxa aad ka daawanayseen Saxafi Films Channel oo idin soo gudbisa dhacdooyinka iyo sheekooyinka ugu xiisaha badan ee shirkadda Bollywoodka iyo jilayaasha ka tirsan ee filimada ka sameeya ee dalkaasi Hindiya. ha moogaanina inaad subscribe tirahdaan Saxafi Films si aad u rukumataan barnaamijyada xiisaha leh ee ka baxa Saxafi Films Channel. inagoo isku duuban oo aabada Saxafi Filmsna waxaynu idinkaga tageynaa intiinu dib dambe u kulmayno sida iyo nabadgelyo.